kulan wacana wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada oo mar kale iyo muuqaal kale halkan aan ku suganayo bartamaha magaalada Burco hadda dadweynaha reer Burco ayaan galabta weydiin doonaa su'aal kaftana taas oo oranaysa maxaad u guursan weyday halkan ka daawanaysaana oo Buurdha Media iyo aniga Xamdi Cabdullaahi ah daawasho wacan soo dhawaada magacaaga walaal magacayga waa Xilajana waan dhawey Xilajana walaal aad iyo aad ku soo dhaweynaya ku soo channelkayga Buurdha Media su'aashu waxay ku oranaysaa maxaad u guursan weyday arto walaal qaali arto wax walba waa qoraal inaan guursanay inaan u badalina wax soo kordhana anaga jecel balse laakiin deekaan guursan lahayn baanan haynin wali waxaan ku jirnaa search waan baarana wali danka faraxyada ka hor xagooda iyaga ma dhankooda way go'een baa la oran karaa dhanka haasawa ama se dhaqaalahaba ما نيجي حاليا ذكر نقول رأيه إما كان يعني أما أفارحه أما نحكيه اللي كرنا ما تشرتو بس لكم هذا لا رجعوا وصلوا دبعة حبلها ولي بدي حبلها مقارنة سعي لعكت قورة ولا ها وايو waxay walba marka imika wax quudaan baa laga yaabaa in habluuna idin soo dabcaan marka waxaan leenahay inamada soo dabca hablaha wax siiya annaguna marka aan idin guursano aan idin dabacsanaano waa kale qof maran cidna xog falmayso laba qaawna isma qaataan wixii xeeraano anaga naga joogan aad baan ku salaamayaa waan dhawahay walaal magacaygu Cabdikariim Maxamed Cabdikariim Buurdha Media ku soo dhaweynaya su'aal kaftana dadweynaha reer Burco weydiinayaan ku weydiinaya su'aashu waxa qoraysa maxaad u guursan weyday waxaan u guursan waayay duruufo jira la ajligay koo waxa ka saxiir baraka iyo meherka dumarka oo qaali hadda noqdo kor aad ugu kacay kowdhe marka al-awwal waa inaan guriga hayo dhaqaalihina waa inaan hayo kowdhe labada markaan helo baan xagga dumarka u soo jeesanayso bal gabadhiba hadaba isku fiicantii masalan ka xaliimku dhankooda dhagax ka dhigan baa raga aad iyo aad way nagu adkeen laakiin waxaan ka codsanayaa waxaana leey guurka la jabiyo guurku waa meesha aynu ka tarmayno nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam guurku waa saddex marka uu horeysay waxa weeye saddex baa loo guursanayay in ummadda nabi maxamed ay badato nabigu wuxuu guursada si ay ummadaha kale uga badataan oo aan idinku faano yoomal qiyaamaha ta kale waxa weeye xaraanta la iskaga dhowrsoonay ta kalena waxa weeye labada qof inay diinta iyo cibaadada Ilaahay isu kaashadaan saddexda qodob wixii aan ahayn waa fasahaad weey guurku saddexda wixii aan ahayn waa halkii saarana Allah u naxariistay way iska akhriisabaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam soo dhaw walaalkay magacaaga waan dhaw magacayga waa daahir aad baan ku soo dhaweynay walaalo su'aashu waxay ku oranaysaa maxaad u guursan weyday maxaad u guursan weyday waxaan u guursan waayay sugan soo xasuustay waxaan u guursan waayay in adeeray horta gabadhii nin baa dhalay ninkina xooluu doonaya annana xoolo ma hayno marka ninkii dee annagoo qallayle ma doonayn inaanu galle dee waxaan doonaynaa inaanu dee annagoo xoolo haysana gabadhiina nin baa dhalay oo dee wuu kugu qabsanaya ilinkaana kala bixi maysid dee adigoo xoolo keena mooyaane marka dee in adeeray idinkii baa noola soo jiifsanaya dee badhana gelinina inaynu iswanjalle iskuma inaan lahayne dee inaan in adeeray dee ma garanaysa dee soo isdili maysaan dee marka waa isdilaysaan gabadh reer dhalay oo nin baa dhalay dee adoo kale gabadhii markuu nin dhalay dee adoon xoolo haysan haddaad isku doonato dee adaa ka sheekayn doona markaa waan ka yara gaban laha anugu dhaweynaya su'aal kaftana ku weydiin dadweynaha reer Burco maanta weydiinayay su'aashu xoranaysa waqtigan yar waatay bal maxay u guursan weyday qoranaysa wallahi bisarad baan hay sorka koobaad baashina bisaaradina dee xilkii dalkiina waa talaga kala wareejiyo dalkii bedel ka dhacay annagu ciraan wax ka sugaynaa ciraan meel markuu nageeyaan musabbixna maalin badi weydiiso dee muusan dartay laakiin iminka dee ciraan iska sugaynaa ciraan wax ka sugaynaa bal wax noo kale adiga wax bedel waa kaas waad yartaan su'aasha ku sii dheeraanaynin laakiin guurlaanta waxa keeni karaa isleedahay waa waqti adag والله وقت أنا ما والله هبي والله هبيجا مركان وقت وهلا أيام سلية مستقبل سماه لكن يمكن دق سميل هذا ما سمك ولا على سودو ولا مقعاقة عبد أحمد عبدي ولا سودو Buurdha Media waxaan ku weydiinaya su'aal yar oo horeysa kaftan way su'aashu xaras maxaad u guursan weyday waa dhaway walaal aad baan ku salaamayaa Buurdha TV adiga iyo TV-ga aad baan idin salaamayaa
سؤال شو محيتي وحاتري محد قرصان ويدي سما هاون كروان لا يوان قرصان ما سنت ولا magacaaga oo dhaw wala magacayga waxa Cabdiqani Salaam Awood Cabdiqani walaal burda miyay ku soo dhaweynaya su'aasha waxa ka horanaysa su'aal kaftan dadweynaha heer Burco weydiinay weeyaan waxa ka horanaysa maxay u guursan weydiin ma aniga horta guurku waa shay sunna ah weeyaan diinteenuna aad ay nagu boori gelisay laakiin shay kasta xil buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man istada'a minkum alba'ata falyatazawaj qofkii haya maoonada iyo wuxuu uu meel ku gali lahaa ha guursado marka qarashkeeda aan helo ka gaagaabsan maayo guursanaya insha Allah ay ku gubay walaal soo dhaw walaal magacaaga waan dhaw walaal magacaaga Cabdiraxmaan Axmed walaal Cabdiraxmaan oo kula wada yartay su'aal weyn ma ku weydiin doonaa su'aasha waxa ka horanaysa maxay u guursan weydiin maanugu walaal waa caadi carab maalin buu imanaya marka carabka ay tahay u mas'uuliya ma jiro imika waxyaabo ka hortaagan soran karto walaal yartay hadana guurka waxay ka hortaagan maaradkii ku dhaayay waxbarashada dhamme iyo hawlaha aad badan oo waan yara kulum karasa maherkii iyo lacagtii iyo hawlihi oo dhimande saaway waa ma santay walaal soo dhaw walaal magacaaga Ali baa leeyahay Ali daayro aad bad ku soo dhaweynaya walaal su'aasha waxa ka horanaysa maxay u guursan weyday su'aal kaftana dadweynaha heer Burco weydiinay maxay u guursan weyday horanaysa maxay u guursan weyday ayna mariba Taynagu ma iskuursanaa labadeenu ma iskuursan ma guurstay adigu ma guursatay anigu imika anu dhowr jeer hore laakiin say ma haysan ma imika waan haddaan raadinayaa imika mid labadeenu ma iskuursan maxay noqon kartaa sababta ugu weyn iska dhaaf su'aal baad weydiisay ka war labadeenu haddaan iskuursan labadeenu oo wada hadli karnaa inagu laakiin sababta ugu weyn oo oran kartaa imika guurku iga hortaagan yahay maxaa u sababaynaysaa aniga guurbay ma hortaagnaa kuwii horena waan hayaa imikana mid baan raadinaya midina waa adiga weeyaan خضر ولا خضر ولا كسروني بردا ميري سؤال يربح وديني فرنسا maxaad u guursan weyday hadu guursan weyday wala calafkii ma soo bixinaa saran karna xada xalimeeyinku dhankooda iyaga adkeeyay ya dumarku dhankooda idinku adkeeyay saran ha taa wala soo karaa laakiin ولا شرن كرا تقلي لكن قف والبو على كلي انت ولا soo dhaw walaal magacaaga waa dhaw walaal magacayga Axmed Cabdiraxmaan Ali Axmed walaal baan ku soo dhaweynaya su'aal kaftan dadweynaha heer Burco weydiinayaan weydiin doonaa waxa ka horanaysa maxaad u guursan weyday aniga walaal anigu waa guursadayba su'aasha ka horreeyay weydiisay laakiin ha bariyo dhaxdaas oo guursaday waa kuladana tii labaad laakiin sayn la doono qurux badan tahay laakiin imika haad furnin bay tagay ilaale ma tigi meesha hore kale heshiiyay nootaya kala saxan bar dhaxdaasoo tii labaad baan insha Allah laakiin waan guursaday alxamdulillah aduma guursatay ana ma guursan waa su'aal caadiya soo dhaw magacaaga Cabdi Baalay Maxamuud Cabdi waxaan ku soo dhaweynayaa burda miyay su'aal kaftan dadweynaha heer Burco weydiinaya su'aashu xeeransa inaad ku qosay baa wana malaynaya maxaad u guursan weyday حق ويا تقول كلاه قراه تو marka ilaahay qoro ma gufeena ilaahay qoro mudee ma saran karna dhanka xalimeeyinku iyaga adkeeyay guurka ma adkeeyna wallahi raguna uu adkeeyay wada iska qayla moogtaa laakiin anigu waan intasalahay laakiin marka ilaahay qoro ma gufeeya ya qorto weynay ma horan ta guurku iga hortaagantay waa nacmo waraanita guurka adkeeyay waxa ka hortaagan adigu qof walba deebo ku arasho ku dhacay ku guursaday dadku uu badan yahay laakiin qof walba xilligiisa gaadho ku guursanaya deeb wasla asante walaal soo dhaw sheekh magacaaga maxdiin ku soo dhaweynay walaal su'aal kaftan dadweynaha Burco weydiinaya waxaan ka horanaysa maxaad u guursan weyday guurkaas iyada guurtu waa calaf kowde markaa kolley calafkuna waqti uu leeyahay marka waxaan qabaa qofkii calafkiisa u soo baxo isku guursan kaya sidaasaan qabaa ma guurstado maanu mayuli iskaba way ma kamid ahay dhalinyarada weli tahay kulay waxay tahay sababta ugu weyn oran karto waan u guursan waayay kulay caqabado waxay loo mid weeyaan calaf waan soo bixin weli calafkii
talabaana waxa weeyaan dee qof wali wixii wax barashada ku jira kowle waxaad ugu faysaa maxay guurka marka ka baxo insha Allah ka baxo markaas yaa ni aad u noo jeesanaya dee